Asalaamu calaykum saaxiibayaal, ku soo dhawaada wararkeennii maanta. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo si cad uga hadlay inuu ku khasaaray dagaalkii 3 sano qaatay ee uu la galay kooxdii Nabad iyo Nolol uu hogaaminayay Madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweynaha Puntland ayaa xildhibaanada Puntland kulan uu caawa la yeeshay si cad uga hadlay inay ku khasaareen ololihii ay rabeen inay ku tagaan villa Soomaaliya si ay uga faa'iidaan shacabka Puntland halkaasna u helaan madaxweynaha Soomaaliya. Deni ayaa si cad uga horqirtay xildhibaanada maamulka Puntland. Deni ayaa sheegay inay kala soo kulmeen Muqdisho jab aad u weyn. Deni ayaa sidoo kale raaciyay inuusan ku qanacsanayn qaabka uu u magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Barre. Deni ayaa sheegay in lagala tashan. Deni ayaa sidoo kale qiray inuu ballan uga baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii la gaaray wareegii 3aad ee doorashada. Deni ayaa sheegay inuu Xasan Sheekh Maxamuud u hayo marqaatiyo badan uuna u ballan qaaday inuu ka dhigayo ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya. Deni ayaa sheegay inuu siinayo waqti gaaraya 120 cisho xukuumadda Xasan Sheekh. Deni ayaa sidoo kale u cadeeyay xildhibaanadiisa inaan lagu kalsoonaan karin golaha wasiirada uu soo dhisayo Xamse Barre. Deni ayaa sidoo kale ka codsaday xildhibaanada dowladda Puntland inay dhex galaan arrinta asaga iyo Karaash ka dhaxaysa ayaa aad cirka iskugu sii shareertay kadib markii uu ku soo laabtay madaxweyne Deni Puntland. Sidoo kale Deni ayaa wajahaya mooshin aad u culus ay uga soo horjeedaan xildhibaanadii shalay Muqdisho u raacay oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid. Deni ayaa aad uga walwalsan kulanka biri oo ka dhici doona xarunta baarlamaanka ay suurtagal tahay in xilkiisa uu ku waayo maadaama ay Puntland dhaqaalihii hoos u dhac ku yimi wixii lacag ay dowladda Puntland ay haysana lagu soo khasaariyay Muqdisho. Deni ayaa arrintu aad uga xun tahay haatanna wuxuu ka warsugaba waa kulanka fadhiga baarlamaanka ee Puntland ee birito. Dhageystayaal, waa naga intaas xogtii aan ku eegaynay Saciid Cabdulaahi Deni oo qirtay inuu ku khasaaray jab weynna ka soo gaaray ololihiisii doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Fadlan kanaalkeena haddaad ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto faalooyinka xiga ama wararka xiga. Waad mahadsantihiin dhageystayaal.